السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي هذا انت عندك صوتها هي مقال كان سفري وحسن كجرة ان شاء الله. ما انت حنك بلابينا شيكوين كان انت نقول قلين كومنت كان قبل السوق قرتي علامة كل شيء سئنا صلاة ما انت بلاودو مركزات بدن ايا جرة صلاة كو ادك تهي ام علاس كسارن تهي هداد كمد اهين ددكاس إله كوني معي الحمد لله ددك حوغ علاس كسارن تهي اما اسكفو ذيستا مركز كواس بيكو سعوتا إلهي كلجين هنقدر يضد عبادة توسية أو دائمة صفي عنه رقمة إن شاء الله مركا قف كان وحي يرهدي هو يا وحي إيش شفت إن ويل كذي ودنتي شيء كذا ذا أنا واحد بدل ما نسيق وذقلين لكن وحي إيش شفت إنه ويل كذي صلاته كنجرين وحي بلاو ذا إنه صدق بدن درتيس وبحسه يدا الله أغبر يسا إنه الجنة كورابيو ويل كذا كدي وحي كريوته إنه رياض ويل كي ويمد وحي نكويري هو يديس هوي waxaan ku jiraa naarta wax kasta oo aad sameeyso waxba kama bedeli kartid baan naxay markaan maqlay ilaahay hanaga dhigo dad oo salaadoodii iyo qaatimo fiican ku dhinta oo salaadoodina ooga dadka salaada u fududeen ilaaha u fududeeyo insha Allah. Okay, sheekadeen marka istighfaarta iyo aan ka bilaawno qisadan waxaan ka maqlay sheekh oo muxaadaro aan ka dhageystay iyo qofkan yiri gabadhan oo leh 4 caruur ayaa xaajigeedii dhintay noloshu way ku sii adkaatay markii ay awoodi weyday inay bixiso kirada guriga iyo waxyaabaha basic ah caruurta cuntadoodii iyo waxoodii waxay aadi jirtay masjid lacag ayay ka baryi jirtay sidaas ayay ku noolay maalin maalmaha kamid ah imaamkii masjidka oo 2 jeer arkay ayaa wuxuu weydiiyay xaaladeeda sida tahay iyo maxay ku sugan tahay intuusan ka tagin ayuu kula taliyay inay istighfaar badan sameyso xoogaa way ka shakiday laakiin way isku dayday inay sameyso maalin walba waxay sameyn jirtay استغفار بدن مدة كدب إمامكي مؤوسن أركن هوينيدي مساجدكي بريو وحو نويديي محاكو دعي قبلي درس كيدي أيا وحو أشيغي إمامك إنو نين يمد أو قرسدي أو كحيستي سبحان الله نين إن أذاركد ميلفق أو كيمد أو مالقبين قناعسدي أيا مغلي حال كيدي سدوها وحو نقو أنسدي إنو قرسدو ويدي عرور تيدا بدريالو ما شاء الله تبارك الله. اوكي qof kan wuxuu yiri hooyo iyo aaba kaliya ay dhaleen walaalo ma lahayn waxaan marar badan Allah weydiisan jiray inuu Ilaahay walaal siiyo alxamdulillah maanta walaashay waxay iga yartahay 14 sano waxa kale oo dhacdo yiri depression dhowr sano ayaa ay hayay oo xun bariyahan dambe wax walba gaar ahaan qoyskeyga asxaabteeda xaaladeedu ma ahayn mid wanaagsan xiriirkeygiina wuu burburay xanuun baa i hayay oo waan u adkeysan waayay waxaan bilaabay inaan tukado tahajjud waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryay inuu ii gargaaro anigoo oynaya waayaabay subaxdii dambe ayaan toosay waxbana maan dareemin waxaan dhansaday free inaan ka noqday dareenkii cuslaa oo mugdigii isaarnaayo dhan waxaan markaa hal mar daahil iga qaaday waxaan hurdada ka kacay anigoo moodo inaan riyo xun ka soo kacay oo hal mar wixii dhan iga boodeen waxaan isku dayay inaan cafiyo dadkii dhibay gaar ahaan waan cafiyay nafteydii silicii aan sanadahan ku jiro oo dhan hal habeen oo qura bay iga baxday tahajjud dartiis oo Allah aan ku baryay subhanallah inaan ka soo kabsado wixii hore oo isoo maray oo dhan ma suurtoodeen Ilaahay la'aantiis 4 sano oo depression ah ayaan ka bogsaday markaan tukaday salaada tahajjudka. Okay, qofkan wuxuu yiri waxaan bilaabay inaan sameeyo istighfaar dhibaato ayaan kala kulmay shaqadeedii waxaan rajo ka qabay inaan aaso ganacsi gaar ah laakiin isla waqtiga waxaa isoo maray dhibaato xagga fiisaha oo aan ka walwalsanaa mustaqbalkayga dhan waxaan bilaabay inaan istighfaar iyo tahajjud iyo dhikr aan sameeyo si taxadarna uga fiirsado iyo soon alxamdulillah dhibkii fiisaha waa iga baxay gabi ahaanba waxaana la siiyay fiisihii markii horena oo la ii diiday oo la igu yiri suurtagal ma aha inaan hesho ilaahay wuxuu ii suurtageliyay wax impossible ah lagu yiri ayaa ilaahay ii fududeeyay isla markaasna wax badan ayay nolosheedii iska bedeshay alxamdulillah hadda waa inaan xaliyaa xaaladeeda dhaqaalaha oo u diyaar garoobaa ganacsiga oo aan la tacaalaa halganka kale ee nolosha way adag tahay in 10,000 istighfaar ah iyo suuratul baqara hal maalin gudaheed lagu dhameystiro waqti iyo tabar ahaanba laakiin muddo badan in la tijaabiyo waayo oo la wada aakhirkii waad keenaysaa insha Allah. qofkan kale wuxuu yiri hooyaday waxay lahayd qufac aan dhamaad lahayn tan iyo markii aan yaraa dhaqaatiirtu waxay sameeyeen baaris aad u badan laakiin wax cudur ah laguma sheegin markay wax cunaysa xitaa way hunqaacdaa waxay ahayd wax aan ka yaxiixo markay qufacayso markii aan dadka dhexdiisa ku jirno maalin kadib markii aan arkay muuqaaladaadii waxay kula talisay hooyadeed inay bilowdo akhrinta suuratul baqara shalay ayaan weydiiyay tiri maalmahan ma maqlin adigoo qufacaya markii aad telefoon ku hadlaysid ma isbitaal baa tagtay hooyadii ayaa tiri maalmahan ma qufaco tan iyo markii aan bilaabay akhrinta suuratul baqara ma xasuusto markii ugu dambeysay xataa oo aan qufaco alxamdulillah suuratul baqara ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ku daaweeyay hooyaday
qofkan kale wuxuu yiri waxaan idin wadaagayaa khibradeyda sida idin caawiso waxa igu dhacay murugo iyo walwalac 4 sano oo la soo dhaafay ilaa uu heer wadnahaygu si joogto ah u cuslaado qiyaastii 3 isbuuc ka hor waxaan bilaabay istighfaar 2000 oo jeer maalintii 3 toddobaad gudahood depressionkaygu iga tagay mana u toosin sidii aan u cuslaan jiray dhowrkii sano oo la soo dhaafay guud ahaan caafimaadkayga iyo shucuureed iyo maskaxdeedba aad buu u wanaagsan yahay waxaan rajeynayaa inay dhiirigelin idin noqoto fadlan ii soo duceeya qofkan kale wuxuu yiri mid kamid ah qaraabadeyda ayaa had iyo jeer akhrin jirtay istighfaarta oo waxay ku mashquulisaa carabkeeda mar walba alla wuxuu ku manaystay hanti aad u fara badan waxay heshay dalacaad xagga shaqada promotion wiilkeediina wuu guursaday xitaa hadda waxay bilaabday ganacsi markii la weydiiyey waxay sirteeda tahay oo sirta maxaa ka dambeeyay farxadeeda iyo guusheeda waxay tiri waa wax fudud waa istighfaar qofkan kale wuxuu yiri inta badan dadka aniga oo kala dhaqan uma laha inay sameeyaan wax dhikr ama istighfaar ah sababtoo ah maskaxdeena waxa ka buuxa waxyaalo kale distractions waxyaalo badan baa ku mashquulna waayo aragnimadeeda gaarka ah waxa aan soo download gareeyay dhageysiga dhikriga istighfaarka ilaa iyo 1 saac oo ku celcelis ah ka hor intaanan seexan waxaan gashadaa dhagaha oo aan dhageystaa markaan kacana waan joojiyaa taas awgeed alxamdulillah hadda waxaan sameeyaa ama dhageystaa 10,000 oo jeer maalintii isku day bal inaad intaas sameeyso أنا أغادي قطو سيدي أكسجين كنولش هذا هلكي أتكلم جيسان له الميوزك تن أيكون بدلي كرتا وأنا كحما هاي فعلى ذا qofkan kale wuxuu yiri waxa dareenkayga soo jiitay markii haweeneyda guriga iga shaqeyn jirtay oo muslimad ah ay ii sheegtay inay wax cunto aysan haysan ninkeedii isbitaal ayuu ku jiray 2 bilood xanuun kaliyaha ayaa hayay gurigii buu iska joogayay intaasna markuu ka soo baxay isbitaalka laakiin aad buu u tabardarnaa mana awoodin inuu istaago xataa dhaqaatiirtii waxay siiyeen 2 bilood oo kaliya inuu noloshiisa ku egtahay kadib inuu dhimanayo ilaah baa ogtaas waxaan kula taliyay inay si joogto ah u tiraahdo astaghfirullah waxaan u sheegay waxa ay ka dhigan tahay ilaahiyo waxaan ka barayaa dambi dhaaf saasan u sheegay u dhahayaa isaga waxay sheegtay inay ku oranayso luuqadeeda ilaa maalintaasna way bilowday iyadoo shaqadeeda wadata toddobaadkii xigay markii ay shaqada timid waxaan arkay qoftii muuqaalkeedii fiican yahay waxaana weydiiyay inay fulisay adkaartii oo aan u sheegay ha ayay tiri maalintii ay shaqada ka rawaxday ayuu taksiilihii ugu soo horeeyay ee aragto oo qofba lacag xataa bixinayay baskii ayada lacag laga qaadin maalintaas uu iska cafiyay wuxuu tiri waxba bixin buu yiri dabadeedna dhowr maalin kadib ayuu nin familkeeda kamid ahaa wuxuu siiyay lacag 250 riyaal oo ku yiri ordo cunto soo ibso waxay ii sheegtay oo kale inuu ninkeedii sidoo kale u bilaabay inuu astaghfirullah si joogto u yiraahdo uuna sameeyay toddobaad kadib uu ka kacay kadibna wuu labistay waxa ay weydiisay halkuu u socdaa waxay u sheegtay inuu aad u fiican yahay uu shaqo raadsanayo khamiistii ku xigtay wuxuu helay shaqo isniin ilaa jimco ah ninkeedii ayaa aad ugu mahad celinaya iyada inay u sheegtay inuu dhaho astaghfirullah sheekadan waxaan u sheegay 5 qof oo kale dhammaantoodna waxay heleen jawaab wanaagsan markii ay badiyeen astaghfirullah maalin kasta sheekada intaas bay ku egtahay insha Allah marka khayr baan idin rajaynayaa until next time assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh